بسم الله وخبرة وذاك كلن كيسي شنية لباتنات waxay noogu marti wasiir Dr. Cabdisalaan Xuseen Cawaale oo wasiirka wasaaradda tiknoolajiyada boosaha iyo isgaarsiinta ee Somaliland saacadda wasiir ku soo dhaw barnaamijkeena khibrad wadaag waan dhawahay Axmed aad baad mahadsantahay waan ku dhawahay khibrad wadaag san idin sheegay maanta Dr. Cabdisalaan bay noogu marti Cabdisalaan Xuseen aabaha la naxariistay dhawaan buu geeriyooday isla markaana waxa maayirkii magaalada Boorama waliba maayirkii ugu horeeyay madaxweyne cigaal uu magacaabo bal taariikhdiisa koobana la naxariistay marka hore ciid mubaarak dhamaan bulshooyinka reer Somaliland marka labaad waan mahad celinayaa Axmed iyo tiimkiisa kamaramaanada waan ku mahadsantahay booqashada soo booqateen kullu caam waantum khayr baan lahayd dadka dhamaantood waa maalintii saddexaad ciida waa inna lahu raajicuun aabba waa geeriyooday Allah naxariisto laba ka hor buu geeriyooday marka waxaan ilaahay ku baryo naxariis janno siiyo insha Allah waan ku mahadsantahay taasida taariikhdiisa kooban maadaama aabaha maayirkii magaalada Boorama waliba maayirkii ugu horeeyay la magacaabo haddaad wax yar nooga sheegto niyo taariikhda maayirka ka hor waxa jirta kulli horta chance uma helin aabaan kaga sheekay taariikhdiisa qofkana markuu geeriyo laba qof baa ka sheekeyn kara qof saaxiib dhow laha oo taariikhdiisa ilaa xad yaqaanay iyo qof kamid ah ehelkiisa ama familigiisa oo muddo la socdo oo muddo xaaladiisa la socday Allah naxariisto aabba sidoo sheegay waxa uu dhashay 1945 waxa ku dhashay degmada Boorama meel duleedkeeda la yiraahdo Abu Qays oo ay beertooda ku taalo ama beerteeda ku taalo wuxuu wax ku bartay waxbarashadiisa qayb kamid ah wuxuu ku soo qaatay Djibouti oo ka soo laabtay markuu yimid marka wuxuu ka noqday macallin ayuu ahaa dawladda dhexe Soomaaliya macallimada markii dambe wuxuu noqday principal ama waxaan loo oran jiray head teacher-ka ay afka qalaad lagu yiraahdo maamulaha iskuulka kuma soo gaadhin runtii aanu aabahay waxbarashada ku jira intii aniga garaadkayga laakiin markuu taariikhaan iga sheekeynayay Allah naxariistee wuxuu ka soo shaqeeyay iskuul ay kamid yihiin Bon Boorama Abu Qays laftarkeeda oo iskuulku yaalo marka tiimkay soo wada shaqeyn jireen dad hadda magacaaloon ka xusi karo Allah naxariistee wada noqonaya dhamaantood dhinteen Allah naxariisto waxa kamid ah Maxamed Faarax Cabdullaahi Xashara oo jiray gudoomiye SDF birigaas dawladda dhexe Soomaaliya waxa kamid ah Maxamed Cabdullaahi Cawaale ama qoslay loo oran jiray Brasa buu ka ahaa gobolka Awdal waxayna walaalo ahaayeen Allah naxariistee abwaan weyn oo loo oran jiray Cabdikaamil Cawaale okay marka aniga taariikhiyan markaan dib ugu laabto aabba markuu kulli shaqaale dawladeed buu ahaa shaqaalaha dawladana de askarta iyo macallimiinta iyo wixii uun bankariska iyo cid walba ha noqoto صح wareegi jireen choice ma lahayn markay shaqeynayaan marka marba meeshii lagu bedelo bay shaqada ka qabanayeen ubadkooguna ay ku dhalan jireen inta badan because waalidkii waa waalidkii gurguuraya marka aniga labadayga waaweyn bomb bay ku dhasheen oo marka shaqada uu ka hayay aan ku sheegayo iskuulka uga shaqeynayay wada shaqeynayay nimanka Allah naxariistaan soo xusay iyo niman kale fara badan ba anu bomb kuma dhalan laakiin ku dhalan gaaray marka abu markii la soo bedelay ayaad ba Abu Qays baa la soo bedelay okay isla goobtii aabba ku dhashay aniguna ku dhashay okay Abu Qays ahayd si fiican dawladda magaalada Boorama markii dambe aabba Allah naxariisto wasaaradda waxbarashada marka laga tago wuxuu ahaa qof iska jecel waxbarashada marka qaybta politics ku sida nimanka saaxiibadiisa ayuu galay marka political science ayuu ka bartay jaamacadda ummadda Soomaaliyeed markii dambe wuxuu galay maxaa loo oran jiray Siidam oo masters ka qaatay marka waa isagoo macallinimo reer la oo anagu ciyaal ah oo jirna oo waliba soo shaqeyn jiray buu haddana waxbarashadii u bilaabay okay marka waxbarashada ilaa xadkaas uu iska jeclaa waana runtii markii dambe politics uu wareegay meelo badan ka soo shaqeeyay markii dambe xilliga siyaasadda way jirtay laakiin intaan ka xusi karo ugu muhiimsan marka laga yimaado shirkii dib u heshiisiinta Somaliland dadkii wuxuu ahaa figuriska ka ahaa wax ka soo shaqeeyay nabadgelyada iyo nabadeynta wuxuu ka mid ahaa saddexdii hooyee shirka shaqal jooh lagu qabtay 1993 si fiican markii shirku soo dhamaadayna waxa ay noqotay in loo magacaabo mayorka magaalada Boorama oo loo magacaabay isna Allah naxariisto dadku intooda Allah naxariisto
الله نحرس maxamed xaashi cilmo marka wasiirka maaliyadda Soomaaliland ahaan jiray waxa loo magacaabay duqa magaalada Hargeysa okay signa magaalada same day marka okay magacaabista maalin baa loo wada magacaabay si fiican wuxuu ka mid ahaa marka dadkii iyadoo aanay waxba jirin runtii cashuuraha ka bilaabay degmada Boorama oo kowka waxaan xasuustaa marka la magacaabay dhaqaale ma xilin magaalada degmada Boorama xamal jiray sax shaqadii dowladda hoose sabab badan baa soo kabanaysa suuqyada ka dhacay Soomaaliland ka dhacay marka magaalada ka soo kabanaysa dagaaladaas ayaa runtii xaaladiisa waa shaqada ku soo hagaagtay shirka qabashadiisu ma ahayn wax fudud kasoo dadka dhabo u baabaasanaa marka magaalada Boorama dadkii yimid oo kala gaarayna wax kamid ah qalab xastaciga oo deegaanka meesha maalinka house iyo deegaanka marka hotelka ugu daawo hotelka kaliya magaalada jiro waa Harawa si fiican marka magaaladu soo qortay hada umay korin dadkii martida marka magaalada yimid waxa ku qasbanaaday oo la sameyn jiray xaafadaha la kala geeyay dadku jeclaayeen dad baa qaybsanaya dadka qaar guriga ku joogtay dadka qaar guriga ku jooga dadku iska wada shaqeynta badan ayaga laftirkiisa baa haystay dad marka wuxuu deganaan jiray maalinka house halkan ku sheegay Nuur Cabdi Cali gurigiisa ama Siciid Goojo cidiba soo taqaano الله نحرس عمر عرتنا وحده كان نشري هل كان عبد الحسن وفي ماري على هاي وبركة دم عمود يا الله علي يلا قفري بس نقول يجيشوا هو يجيشوا وحكى له شو الله نحرس عبد الرحمن تور ويسوق المركا مرتين مش شوكتها كم دها وعن حسوسته مركا هل كي لقى بلعبنا رش مركا عبال كسكسو بلعب الله نحرسته وسوق جارسي مركا ستيج la soo amaahdo mushaharka dawladda dhexe looga soo amaahdo dawladda hoose wixii ku shaqeyn lahayd waxa soo lacag Soomaaliland babriga soo baxday waxa laga soo qaaday milyan 500 Soomaaliland ba shaqada dawladda hoose lagu bilaabay waliba maalintii la soo qaadiyay lacagtaas waxa soo qaaday isaga iyo nin hadda waxa taqaana Naasir Maxamuud Qowrax Manga la yiraahdaa ayaa lacagta la sidii oo marka shaqada dawladda hoose kamid aha oo runtii base-ka mushaharka laga bilaabay marka halkaas marka danta guud iyo shaqeynteeda iyo magaalada wanaga kuula from scratch bay ka bilaabantay maamuladii kala dambe wax badan bay ka bedeleen laakiin isagu inta uu joogo waxa deynta ligu markaas uu joogo ma yahay soo joogay oo 1999 hayna marka waa jiraan xoogay dawladda hoose uu jiray Allah naxariista waxa isaga ku xigeen oo ahaa markii dambe magaalada meeyirka noqday Cabdiraxmaan Sheekh Umar Daahir oo isna Allah naxariista maalin dhow dhintay Allah naxariista oo abu gudoomiye ku xigeen oo ahaa xoogay dawladda hoose Allah naxariista Aleel baahan jiray markaas Aleel sax Aleel baahan jiray waxa isna ahaa barasaabka degmada gobolka waxa ahaan jiray Allah naxariista Ahmed Maxamuud Guray afweyne dadku yaqaan inta badan oo barasaabka ay sala ahaan jiray waska oo wada Allah maanta Allah naxariista والله نحرس dadka wax ka nool jiro dadka soo shaqeeyeen dadka noocaas ah hay'ad marka halkaas hor dawladda hoose ka bilaabantay degmada Boorama marka waxa inta xusuustayda kulli wax ku soo xuquuq waxyaalaha aba qabteed xasuusan kartaa maxay waxyaalaha uu qabtay waxa kamid aha kulli anigu danta guud ma ku soo barbaaro guri laga shaqeeyo arrimaha noocaas si fiican oo ay kamid yihiin siyaasadda iyo nabadeynta iyo arrimaha noocaas oo ma soo marka gurigeyga la fadhiyo waxaan xasuustaa markii beer holka dawladda la soo galay in lagu sameeyay guriga oo marka Xuseen Caynaan la yiraahdo agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda uu joogay isagoo hadda uu nool yahay ayaa wax lagu qorayay shaqaalaha dawladda ee gobolka in beer holka la gelinayo marka xilliyadaas marka bilaabmaysayba shaqaaleynta dadku marka waxay qabtay waxaan ka soo xasuustaa dinta guud ku jira Allah naxariisto imika saldhiga Boorama oo kale meel uu cid lu iskaga wala jiray marka deelka hadda ku xiran isaga uu saldhigaasi Boorama Allah naxariisto oo waliba qofkii contract kala qaatay baan garanayaa si dhisi jiray saldhiga sax waxa kaloo ka xasuustaa deelka dawladda hoose hadda ay leedahay dawladda hoose meel cid laahum iskaga taliyay laftirkeedu iyo guriga uu nahay sax marka deelka dawladda hoose isagu soo because beriga dhul boob adag baa jiro kala dambeynta wadan way marka qof fajigada ku soo hagaagto iska qaadan jiray marka si loo xadeeyo dhulkan danta guuda si fiican waxyaalo qabtay aadka ugu culayska isku saar jiray waxa kamid ah halka dawladda hoose kale waxa uu deerka u soo sameeyay saldhigga degmada Boorama waxa kaloo xasuustaa keligii ma hayn dad badan dhakhtarka Boorama laftirkiisa ka gaadho dhul boobkaasi waa la naxariiso ka ahaa Xaaji Cabdiraxmaan Cileeye ayaa deerka dhakhtarka laftirkiisa isugu marka dadkii wax ka dhisay badbaadiye hadda badbaadiye dhismayaasha buu kamid ahaa
marka bacdaha boorama hadda ee gudaha suuqa ku yaala xilladii dhisaankiisa la sameeyay dhismihiisa kaasi laftarkiisa in la badbaadiyo كوبا معنا كويا لا بيصدق مورن كاريو لكن way badnaa laakiin inta ka xasuusto waa intaas xusuustayda runtii intaas ka jirta marka waxaan leeyahay un kulli shaqo u taalo marka u qabtay bahay waxaan kulli motivation hadda ku dayanaysa marka arrimaha qaarkood oo kale waxa qayb ka qaadanaya shaqada aabaha iyo maadaama kursiinta inta ugu badan aad isaga la joogto barbaarinta waxa kugu weynaanaysa aabaha shaqada haya inta qurux badan tahay صح nooca doontaan noqoto didnood marka waxa laga yaabaa marka inaad role model ba ka dhigataba oo silaado oo wallahi aabaha shaqo fiican buu hay marka qayb bay ka qaadataa waalidka laftirkiisu sidii caruurtiisu u barbaaraysa sidii caruurtiisu u barbaaraysa waa sidii aabahoodii u egyahay inta badan waxay ka arkeen 8% baan oran okay hadaba aan u imaado taadaasi intaanan u iman aaba maayirnimada kadib xagee buu u jahaysto muxuu qabtay intii maayirnimada ka dambeysay aaba dadka uun iska odayada ah ee ka shaqeeya nabadgelyada iyo waxyaalaha soo qofta kulley isagu wuxuu iska ahaa aan jeclayna inuu markii dambe siyaasadda xoogaa waxa moodayay inuu shaqadiisa iskaga dhex jiray qofta iska daacadaho jecel in dadka horumar gaaro oo caawimo jecel qofkii u yimaada si naxariis loola hadla wuxuu qaban karaa la qabtaa aanan ka gaban runtii oo dadka rusheegayahay wixii uu dareemay marka yiraahdo waxa si saaq ma haboona sida haloo dhigo waxa wixii markaa isagu dareemayna fikirkiisa si toos u gudbiyo way aad baad mahadsantahay allah u naxariisto abo waan u ducaynaynaa ilaahay naxariistiisa ee jannooyinkiisa ka waraabiyo isagiyo saaxiibadiisa kale dhammaantood allah u naxariistada ee tusaalaha nool dadka u ahaa aanu nimaadno cabdisalaan oo wiil yar oo guri macallin marna maayir iyo aabbo bulshada wuxuu taray ku soo barbaaray bal taariikhdaada iyo waxbarashadaada haddii aad wax kooban nooga sheegto horta cabdisalaan waa ninkan hor joogo waa ninka iska miskiinka bulshada waxa ma dheeri hadaan laga tagin wax laga yaabo iska iman kartaa shaqada qofka de maalmo qofku shaqo hayaa marka hadaan laga dhigin in la weyneeyo waa wasiir iyo waxa laga oran qof socialka iska dhex jira family iska middle class ku soo koray runtii exactly hadana aabaha ayuu banahay marka saasana barbaaritaankaagii haddaad ku noqotay hal waxbarashada xageed ka bilowday maadaama dabaqays ku dhalatay boormaad ka bilowday noqonaysa soo waxbarashada waa boqoys ka dhalashada dabadeed waxaa laga yaabaa inaan ku barbaarin baaran saa usii xasuusan laakiin anigu primary schoolkaygii waxaan ka qaab ku soo qaatay elementary schoolka macalin sheekh Cabdiraxmaan Qaadiba hadda la yiraahdaa elementary-gana qaar buu yaqaan elementary school baa loo jeedaa bariga barkii hore ee macnaha dawladii dhexe Soomaaliya jirtay si fiican elementary school markii dambe wuxuu noqday dugsiga sheekh Cabdiraxmaan Qaadiba loo bixiyay kaasoo ku soo waxbarashada ku soo qaatay markaan primary-ga ahaa ilaa class-ka afraad markii dambe aan ka wareegay waxa la oran jiray dugsiga dhexe ee wiilasha Boorama hadda Alaqsa loo yaqaan isaga Alaqsa loo bixiyay marka kaasaan ku soo qaatay dugsiga dhexe dugsiga sare waxaan ku soo qaatay Sheekh Ali Shawar Secondary School ayaan ku qaatay waxaan dhamaystiray anagu waxbarashada aniga dadkii nolodka ahaa xilliyadaasi waxaan dhamaystiray ku 1991 rajadeedu aanu qabnay marka waxay ahayd marka form 4 baad xilliga dhamaysan form 4 baan dhamaynay marka inaanu national service ka leeyahay oo 2 sanadooda ka bacdi 39 ama 39 inaanu jaamacadihii dalka waxaad ka gali kartaa marka chance ka ma naan helin anagu oo maana noqon dad dreamkoogii ku guuleystay burbur dalku galay dagaal sokeeyo galay marka waxa mararka qaar kood waa jiilkii ugu nasiibka darnaa ugu nasiibka roonada tiino si fiican waxaan ugu nasiib galay burburkii dalkan la kowsanay xilligan macnaha damiinadaha iyaga gali lahayd waan ugu nasiib badnaa wali caafimaadkii baa qabnaa marka duruufaha wadanka soo maray kala dib u eego sax wuxuu baan ku soo barbaarnay nolol iska violence ahayd violence waxaan uga jeedaa macnaha ma hatii dagaalka laakiin dagaalo way jireen oo tan kala diyaaradaha xabashada baan ku garaadaysanay iyagoo na dul yimaado aan qaxayno oo da kulligii intii marka wadankeena joogtay way garanayaan 1980 82 marka ay 84 kii kale markii taas way ka dambeysay macnaha waxa soo wada waxa jiray earthquake dhul gariir wax la yiraahdo waa nagu bilaabmo cabsi far badan la guux badan lahaa marka waana ku soo baxnay guryaha laftarkooda tandooyin baa la deganaan jiray mararka qaarkood because burburka ayaa looga baqay oo laga taxadiray taa marka laga yimaado haddana diyaaradihii xabashida oo aad nooga raaci jiray haddana
dagaalka 77 oo isaguna cabsi kale laftarkiisa ahaa booromana waxay ku taala xuduud Itoobiya xigta waxoogaa aad baan ugu dhaweyn marka wax kastoo la maagan yahay dhacaya wuxuu ka yimid halka marka inaan naxdin uun had iyo jeer ku jiro ardaynimadaadii qayb ka mid ardaynimadeedii qayb ka mid ah noqoto noloshu in diyaaradda ka caarara ka qaxa geedaha hoos gala markii dambe 1984 ayaa waxa nagu dhacday hadana burburkii ugu weynaa diyaaradda inkastoo saaxiibo badan ku waayay marka allah u naxariisto oo hadii ugu yiri toban bay haayeen oo hadda allah u naxariistaan ka xasuusto muxuu ahaa Cabdullaahi Nuux loo jiray nin kale waxa loo jiray anagu waxaan naqaanay Sinjibaad Cabdullaahi Diriyaan naqaanay laakiin Sakariyaad garanaysaa waa laga yaabaa Cabdullaahi Diriyaan walaalkooda waan runtii aad saaxiib ahayn allah u naxariisto u dhintay nin kale loo jiray shaaqul baan naqaanay naanisiisa laakiin ina Daahir Ibrahim baa loo jiray Beering nin loo jiray walaalihiin Beering allah u naxariisto ku dhintay waxa ku dhimatay dariskaygii oo muxuu ahaa aad Faisa Sheekh Ibrahim Musa I think Maxamuud baad garanaysaa miirka magaalada walaashii bahay oo allah naxariisto iyada laftarkeedu dadan koow iyo 2 iyo 3 oran karayo ma xaafadaan qofka ka dhimin marka way yarayd marka muxuu ahaa burbur xoogan oo aanan maxana la qiyaasi karin Maxamuud Cabdi Barre walaalkii baa ku jiray waad garanaysaa waxa ku jira koow iyo 2 qayaad barqadeed baa ku jiray Hiba Axmed Cali baa ku jirtay waxa ku jiray dad badan oo dadkani reer Boorama Maxamuud ma tirin karayo macnaha dad fara badan oo Allah u naxariisto oo dasimri iimaan Allah ka siiyaan la intay ku dhimatay laakiin feelinkaygu wuxuu dareemayaa inaan dad badan maalinta weynay oo naam ay noloshii ka baxeen runtiina waxa iska noqonaysa traumatized qof muxuu ahaa soo dhaawacmay oo arkay walaalkii ama la galaaska saray ma mid ka hooseeyay oo meeyda oo marka dareemi karayso macnaha waxay qiiman karaysaa taana xooga dhaawac bay noo soo geysatay markii dambe burburada qaarkood bay yimid dalkii dhanaaba waa burburay dagaal suuqiya dhacay Booramo kale iyada laftirkeeda waa laga qaxay dagaal ka dhacay markaas oo ehel yahayo Soomaaliya oo dhan ka dhacay taasina iyadana rajadeedii ba sii lumisay oo ay go'deer ku sii riday marka inta wixii ka dambeeyay waxay oran karayaa oo struggle-kii nolosha iyo halgankii nolosha ma ku jirnay intaydaan halgalka intaynaan gaadhin iyad ka xasuusataa macallimiintaadii ama ardaydiyaad fonforka kala wada dhamaysan iyo way badan yihiin marka primary ilaa iyo kulleynba meel buu macnaha ayuu de ku hadhayay ama de nolosha ay geelisay dadka qaar ba xamar tagay qaar ba shaqo bilaabay qaar ba waxbarashada sii waday waan kala duwanay laakiin dadka classmate-kayga hadda waxaan halkan wada joognaa Ali Xamed Jibriil oo kala garanaysaa waa gudoomiyaha labaad golaha wakiilada halka waxa jooga kalonka Safiya Cabdullaahi Faarax gabadh la yiraahdo waa Safiya Dictor baa la yiraahdaa way joogtay iyadana waxa kalonka si xasuusta Allahumma salli ala Muhammad aan iraahdo alla ma dhinteen qaar Umar Ibrahim marana kamid Umar Saqdi baa loo dhinjay la yiraahdo waxa kamid ahaa Umar Khayr Cabdi Umar Allahu naxariisto iyo laftirkeedu way dhintay waxa kaloo aad uga sii xasuusta dadkan classmate-ka ahayn Aadar Xasan Taani la yiraahdo hadda isagu Ingiriisku degan yahay dadka hadda halkan jooga ee kale hadda in badan oo kale ma arkin laakiin classmate-kii okay Umar Khayr Cabdi Umar Karim baa kamid ahaa Umar Khayr Umar Gelchirad garanaysaa waa laga yaabaa waxa kamid ahaa Ali Boobin loo oran jiray oo hadda isaga laftirkiisu Mareykan buu ka yimid deganaa marka best friends-kayga Xuseen Nuur Maxamuud oo kale sanad uu iga sareeyay laakiin dadkii aan wada barbaarnay aan muxuu ahaa nolosha wada qaadanay buu kamid ahaa haddaan maasha Allah haddaan dib ugu noqdo Fadxiye Barkad Umar Xaaji Khayr kamid ahaa dadkan iskuulaaska ahaan jirnay markii dambe jaamacadda Camuud aan sii wada bilownay laakiin waqtigu saamixi waana inaan sii wado iyada laftirkeeduna waa laga yaabaa inay macallimiintii maxaad ka xasuustay macallimiintaydii badankooda waxaan ka xasuustaa of course mixilla kamid ah waxa kamid ah Ramadaan ama dadka gabaar buu yaqaan inta badan gabaar Afrikaan Cabdi Xaaji baa kamid ahaa Maxamed Cabdi Xaaji Ibrahim Xareed Allah naxariiste Ibrahim Xareed Suudaan baa kamid ahaa waxa kamid ahaa shaqadii qaranka niman badan fara badan oo dhigi jiray way jireen ardayda dib ugu noqonaya hatta Ismahaan Cabdi Xaaji oo loo jiray iyadana waan arkay oo joogta Xasan Ciid ninkii Xasan Daahir maayirka minkii barasabka ahay classmate-kii waa isaga laftirkiisu Cabdiwahaab Cige laftirkiisu classmate-kii waa waxa kamid ahaa waa dad fara badan oo runtii kamid ah kadib Camuud baad gasheen miyaa markii burburkii Soomaaliland ay Camuud oo Soomaaliland galin laakiin waxyaalaha aan nolosha
ayaa halgan iska ayaa bilaabmay markuu dalku burburay halgankaasi muxuu bilaabmay sidaad qabadaha idinka hor yimi sidaad noloshaada u sahli lahayd صح macnaha qof walba dhinac buu ka eegayay haye marka dalkii markuu burburay meelo shaqo tagay ma jirin okay oo xafiisyo dawladda furnaa ma jirin okay laakiin waxay noqotay bal opportunity kale oo jira dhinac ka raadi inaad markaa self made noqoto because anagu qalin un baanu ka soo baxnay khibrad ma lihin experience ma lihin laakiin maxaa suuqa shaqada ku tegi karaysaa uu qof waliba ayuu isweydiinay anigu waxay igu kaliftay inaan tago geerashka Fuaad Axmed Carab waan salaad wax ka baro qoyska mustaqbal oo hesho kii Saciid Goojaagteeda ku yaalmiya ma markii hore wuxuu ku ooli jiray alqaada aba ayaa lahan jiray isaga uu yaha wuxuu ku ooli jiray halka sariibada agteeda okay halkan gurigoodii sariibada ayuu ku ooli jiray dhalinyarada markaa wax ka baranaysay oo hadda Allah u naxariisto Cabdiwahaab Axmed Horri oo kala kamid ahaa oo isku kala saansan xataa hadda waa iloobi isaga Mustafa waxa kamid ah mooyeen loo oran jiray sida Allah u naxariisto uu dhintay waxa kamid ahaa Cabdi Madoobe nin la hadda magaalada degan yahay group noocaas oo dhalinyaro markaa soo baxay oo markaa dad ka faa'iiday oo number field mid mechanical buu baran jiray mid weldan ku baran jiray yaa xamada qaar dabkay baran jireen markaa anigu dabkan jeclaan barto laakiin kuma guuleysan because of waxaan u beeray qofka aan la shaqeynayba shaqadiisu way badan marka wuxuu gurin jiray lacagta soo ururay hadii lafta day meesha loo socdaana lacag bay dad waxaad noqotay finance marka cashier baa noqday cashier marka lacagtaas baa ururin jiray markii dambe waxaan jirinay bal bedelo meel kale marka ustaadka okay ayaan si wax ka baro ustaadka marka MCH ka Central MCH ka ayaa tagtay u wareegay oo aan ka soo bilaabay meel wax la yiraahdo macnaha subordinate staff ama auxiliary baan ka bilaabay shaqada shaqo ma ahayn laakiin volunteer baan ku shaqayn jiray wax lacag si aan rajo uga sugo sax hadii qof uun chance soo baxo okay in aniga aan noqdo oo markaan ku jiray haye because marka hore waanad waxaad ka shaqaynaysa taqaana ka bacdi marka dambe marka meeshii lagu geeyay lagu xulanaya marka waan u mahad celinay horta dadkii beriga soo gacan qabtay runtii way waxa ka soo bilaabay auxiliary okay waxaan ka xasuustaa laba xirsa Bashiir Galmays waxaan ka xasuustaa Faadmo Umar Kaahin waxaan ka xasuustaa Maka Umar Wabar Ifraax Ismaan Reydal baan ka xasuustaa Xasna Khatima waa dadkan ma hadda balaaran waliba hayo runtii uga Cabdi Cilmi baan ka xasuustaa Allahumma salli ala Muhammad waa dadkii markay soo gacan qabtay i baray injection ka sida loo bixiyo macnaheedu inaan qof mudi karo si wanaagsan qofna aan nabulkiisa dhayi karo marka laba shaqad qabanaysa inaad waxna barato exactly uu shaqaahana because walagu train gareynaya marka training kala siinaya wuxuu ahaa dhowr miis baa meesha ku jira mid height for weight ka lagu eegaya ilmaha dhererkiisa iyo miisaankiisu inay isleeyihiin marka body mass index baa la yiraahdaa macnaha qofka inuu dhererkiisa iyo wada korayaan iyo miisaankiisa iyo hilibkiisu marka aad eegaysa average-kiisa oo qorayso kaasi miisku ahaa miis kale waxa lagu eegi jiray marka oo lagu daaweyn jiray ama lagu talaali jiray ciyaalka oo waxa la oran jiray EPI department ama immunization ama vaccination dadku soo yaqaanaan halkaasina qayb ahayd mid kalena wuxuu ahaa mid lagu eego muxuu ahaa dumarka iyo miisaankooda iyo hooyooyinka uurka lagu ahaa saasuu kala bixi jiray marka laba miis baa aniga aad ku siiyay ka dherarka iyo kaas talaalka lagu sameeyay marka talaalka stage fiican baan ka gaaray oo lagu aamini karo inaan runtii perfect ahay marka waxaan aad runtii aan wax ka wada bari jiray meesha laftarkeeda oo aad uga sii xasuustaa Maryam Yunus Caateeye waxaan xasuustaa إفراح إبراهيم وأنا حسوستا إفراح إسماعيل جبريل أو يدنا المركب مش محفوظ بالعبد الوهاب تشيرمان لورنشري أو قبل كله فهيم لورنشري جميلة قبل كله نعم وفر بدنا مركب تيم كاسي وح هاي هوستي كتيرن هي اللي سيفت تشيلدرن فان SCF ومركب مريم جير ما بحسين شرتي أول ما هذا اللي يدلفتر كذا عيقات شوقي عربي لازم لورنشري شوقي because واحد قريب كهاير أنا ويران سوق قالوا يستيش في عرب أنا واحد دوري يوم ما أنا كشغال مركب بركي vaccination كان برتي mid gaar baan hadana aad u sii bartay oo la jeclaa inaan anigu bixiyo marka BCG baa la yiraahdaa marka halkan bal iska mudaa garabka waa laga yaabaa bar ku leedahay halkaas talaalka TB da la yiraahdaa marka hadii bacteria ku jirta aad sii geliso nooha muruqa waa laga yaabaa inay soo dhaafo laakiin calaamad inuu qofku yeesho ma loogu talagalay marka waxa laga bixiyaa waxa inta deerman la xagga sare laga bixiyaa 45 degree ana xagal aaba lagu bixin jiray soo kaas xariif noqday marka wali ka xayn jiray wax la geyn jiray dila iyo geed taqsi meel la yiraahdo iyo meelahaas ayaa talaali jiray soo maalinta $20 baa la siin jiray soo habi baa noqon jiray $20 xilliga joogay marka markii dambe waxa la qaatay dadkan muxuu ahaa waiting list ku jira marka mushaar baa la qoray
mushaarka la qoray markaa $100 buu ahaa hit buu noqday oo lacag fiican qaadanaya noqday marka struggle nolosha wuxuu ku barayaa dee inaad at least meel iska soo saari karto shaqada choice uma lihida meesha miiska wixii yaala marka inaad qaadato oo haddaad markaa meel kale u wareegi kartana waa nasiibka marka taasaan ka bilaabay markii dambe ideadii aan ku bilaabay caafimaadku waxay igu dhalisay ma samaysan kartaa business marka pharmacy baan samaystay anigu oo ii gaar ahaa boorama dhexdeeda hoos waxaan fahamsanayo ii bilaaban xoogaa caafimaadka iyo daawooyinka iyo kala garashadooda marka qualification fara badan ma jirin marka oo laguma xidhaynin because of dee inaad dawada qofka ka iibiso badha uu dhakhtarku soo qorin baa muhiim ahay marka pharmacy baan meeshii ayaan ka sameeyey pharmacyga marka anigu waxaan islahaa oo just bal businesska wax ka ogow laakiin saan filay uu noqon lacag badan baan ka helay dadkii markaa businesska wada bilownay role modelka hadda ka ahee meel fiican ka gaadhay nolosha waxaa ka mid ah idris aadan xasan idris najax baad garanaysaa laga yaaba maxamed aadan miicaad stationary miicaad maxamed sheekh daahir geele pharmacy ninka iskale xuseen nuur maxamed ninkan kuu sheegay oo isaguna ahaa saaxiibkeyga koowaad runtii oo isaguna pharmacygaasoo kale dhigto businesska aanu isku dhiirin gelin jiray business ideaha nimankan kuu sheegay oo dhan marka iyagu hadda dee meel dheer bay businesskii ka gaadheen laakiin anigu meel kalaan maray oo aan markii dambe u baxay laakiin iyagana halkan waan ka salaamay onan hambalyanaya runtii successka ay businesskooga ka sameeyeen marka xaggaa businesskaan u beedhay markii dambe waxaan markii dambe haddana ku fikiray wax businesska ka duwan masii samayn kartaa berigaa waxa cajiib oo jiri jiray sida biyaha laga dhaansado way cusbaayeen marka xaafadda marka waa la iibin jiray waa lasii gedi jiray marka xaafadda waxaan ka sameeyey kios anigu aan business ahaan u lahaa lacag badan geliyey laakiin la iibin jiray la gedi jiray biyaha soo markii dambe xoogaa lacag fiican baan helay waxaan ku fikiray marka ma samayn kartaa inaad businesska u bedeli karto waxbarasho inaad waayo caafimaadka waxay ga bilownaayeen marka waxa hadii jeer ugu fulaa whatever fieldkaad ka hesha caafimaadka wax ka baro marka horta halkaas business opportunity-ga noocaasa ayaa bilaabmay kadib waxaa timid markaa waxbarashada oo burburtay in la yidhahdo Camuud University baa la furayaa dadku dad baa xamar ka soo qaxay dad baa meelo kale ka yimid soo dadku isma garanayaan yaa secondary dhamaystay yaan dhamaystay waa 97 kii mise waa 96 okay 97 marka waxaan sameeynay waxaan ka mid noqday marka arday la yiri marka imtixaanka jaamacadda geli doontaan ayaan ka mid noqday marka 200 arday baan ahay imtixaan baa la soo sameeyay maadaama aan la kala garanayn dadka ay iskuul dhamaystay yaan dhamaystay marka waxbarashadii maadaama ay burburtay dadku inta badan way ka waxbarashada xoogaa dee waqti hore ugu dambeysay inkastoo anagu iyo group aan ku jirnaan iska daba soo socon jirnay English private schools kan iska dhigin jirnay oo xoogaa isoo jirnay wuxuu iska faa'iideystay si fiican anoo xataa businesska ku jiray laftigiisa markii dambe waxaa timid jawaabta Camuud dadkii candidates ka qayb galay baan ka mid noqday imtixaanka wax ka galay ya 200 arday baan ahayn macala saf genderka gabdhaha hal gabadhan ugu jirtay horena magacayga waan kugu sheegay Fadxiya Barqad Cumar Xaaji Khayre kaligeed baan ugu jirtaa anagu 200 wiil ayay kaligeed imtixaankii gabdhaha la gashay I think markaan hooyahay laftarkeeda laakiin waan hambalyeynaya inay nacam stage-ka inta la eego kale ayay nala soo gaadhay because waxaan ku xastaa magacayga saddexan because primary school baan ka soo wada bilaabay waxbarashada ilaa jaamacad weydinka ilaa stage jaamacad school nimaad haba la kala maqnaaday intii hore laakiin haddana waxbarashada kale waanu ku kulanay markii dambe waxaan imtixaankii baa bilaabmay resultkii baa soo baxay markaas iska nasiib malaa mooyaan fan bay noqon doontaa waxaan odhanayaa maan filin laakiin de qofkii jaamacadda qofka koowaad noqday baan ahaa xilligaas oo marka 200 ee arday qofkii ugu sarreeyay baan ahaa waxay ugu xigeen la Maxamed Sheekh Daahir geela la yiraahdo hadda iskuul mudagay laakiin businesskiisu boorama ku furayay sax waxay ugu sii xigeen Maxamed baa la yiraahdaa waa aabe waliba xilligan aabu ahaa ma sha Allah in waxbarashada jecel hadda bisha casar Hargeysa hadda halkan haysta qofka saddexaad buu ahaa marka waxa loo yimid group jaamacadda Camuudeed asaas oo ah oo marka hogaaminayo runtii aanu si fiican uga sii xasuusto in kastoo badnaayeen dadku magacantooda aan hadda si xusi karin la yiraahdo Xasan Ali Cusmaan oo markii dambe asarda iyo ayuu maamuli jiray marka ninkii kow noo bilaabay waa jaamacadda salary ugu horeeyay siiyay macallimiinteedii markaa jaamacadda bilowday Allah naxariisto wada noqonayna hadda Saleeman ma ka nool Professor Saleeman Ahmed Guud ayaa ka nool wana khibradaad martideedina ka mid baa absolutely oo hadda aan oran karaba waa aabaha waxbarashada casriga ee Soomaaliland oo runtii qof
figure oo magaala wax tacab badan soo geliyay jaamacadda waxa ku jira markaa macallimiinta Allah naxariisto maxamed halan cali suudi baa loo jiray waxa ku jira carab cabdullaahi bulaale Allah naxariisto waxa ku jiray faarax shoon afarta macallin baa jaamacadda noo bilaabay waa Allah naxariistay iyagu salaamana markaa nool afarta macallin markaa qofka cidda jaamacadda fariiso waxa noo sheegto xasan kowka haba waxa nagu yiraahdo wanayo macallimiinta wax mishaarkooga hadduun baanu haynaa 2 bilood laakiin inta wixii ka dambeeyay fiidiina ayaa mishaar noqon doonta marka guddi baanu ahayn aniga iyo ninka ku sheegay geele maxamuud hadda xildhibaan weeyaan xasan axmed caylan bal xasan jacayl badal ku nooleysan xildhibaanadii hore wuxuu golaha deegaanka waxa kamid ah Siciid Muuse Madoobe waxa kamid ah guddi fara badan oo marka aniga gudoomiye la iga dhigay baahay oo maadaama anigu aan meherad lahaa marka cashier wax week baarayo aan lacagtan ku hayn jiray marka waxaan oran karaa macallimiinta Sulaymaan iyo Allah naxariistay Carab iyo Faarax iyo Maxamed mishaarkooda marba wax ka bixiyo anigu afar bilood lacagtoodii because lacagtii markaan soo ururinay ardayda ka ururinaysa ardayda ka soo ururinayna markaan ardayda ka soo ururino ka bacdi waa in macallimiintii mishaar u noqdaan $30 baan markaa bixin jiray lacag oo fiya marka $30 ma calkilan qaadani may ardayda $30 bixin laakiin afarta macallin baa loo qaybin jiray inta noqdaan okay because the meel kale resource kale wax laga helay ma jirin muu jirin okay marka jaamacadda aan kira ahayn marka shaqal shahar intensive course kii baan ku dhiganay marka dambe amuud marka hore looma guurin laakiin shaqal shahar bal guurin exactly shaqal shahar bal guurin markii dambe amuud baa la guuriyay baa leeyay aniguna business baan haystaa waxaan isla wanayo amuud way dheer tahay oo malayn ma inaan tahay karayo fiilkan xiiseynina markii hore uu sheegay waxbarashada wuxuu ahaa caafimaad waxaan niyo marka future-ka gaar kamana soo muuqan marka fiilkaasi runtii jaamacadda bilow ahayd oo may dhawin marka dambe waxaan ku dambeeyay inaan ilaahdo okay jaamacad wixii aan ugu doonay marka ka dambe baan iskay u raadsan doonaa insha Allah laakiin macallimiintu aad ay xiiseynayaan leeyihiin oo kaali buugta la ii keeno qaab noocaas ah marka dambe deeq waxbarashaan helay oo marka Soomaalida Pakistan joogta loogu talagalay marka anu lacag fiican haysto isku filan baan marka Pakistan tagay because business baan ahaa oo lacag fiican baan iska haysto ka sameeyay business ku sheegay marka anigu lacagtaas sameeyay inaan haddana dib wax ugu baran karo baan taageeray oo ku sheegay noloshii la geerish la ka soo bilaabaan ku goori waxa raadinay opportunity baa raadinay ilaa auxiliary ba soo maray ilaa iyo business kaasi la soo gashay marka oo burburka dalku markuu dhacay bay ahayd markii waxaan wareegay Pakistan marka deeqaha waxbarashada wax lagu sii jiray waxa la Muslim minority macnaha muslimiintu wadamada ku yirihiin waxa kamid ah Nepal waxa kamid ah Ethiopia waxa kamid ah Palestine wadamadaas la sii jiray marka deeqaha waxbarashada Soomaalida loo dhex gelin jiray wixii laga heli karo professional cities-ka baa la sii jiray marka ninaan aad halkan uga mahadnaqayo Cabdiraxmaan Cumar Sheekh Ibrahim la yiraahdo ba nagargaari runtii oo wax badan aad noola qabtay anagoo arday fara badan oo waliba u badnaa waxaan u badnaa gobolka Awdal laakiin runtii dhalinyaro kale oo Soomaaliyeed weerasho doonaan baa ka yimaadaan nagaan qabtay laakiin ma had baan ugu haynaa runtii oo waa qof nolosheeda wax weyn ka bedelay oo rag badan hadda adduunyada meel walba ka shaqeysta oo taaba galay baa laga yaabaa inuu isagoo admission ka soo qaado waan xusay runtii waa Cabdiraxmaan noloshu markaasay struggle ka iskaga ahayd in baan dhexda kaga soo booday Hargeysa baan iska dhiman opportunity-ga shaqada ka raadinayna annaguna cidna ku lahayn runtii hal wiil oo nin aan aad saaxiib u nahay Gaafoota leeyahay jira Maxamed Sheekh Faarax Warsame oo dadka runtii taaba galay isaga laftirkiisu Hargeysa from that day 93 ilaa maanta meel lagu bixino uu joogaa marka hadda uu officer waxa weeye waxa haystaa US security ga haystaa isaga martii uu noqon jiray marka Hargeysa timaada martii baa noqon jiray marka qol yar deegaanada la deegaanaan jirnay because shaqo raadinayna marka dhalinyaro fara badan oo hadda iyaga laftirkooda wada runtii kaasina miyuu jiray baa laga yaabaa inaanu relation shaqada ku saabsan inuu soo dhaxmaray Cabdikariin Axmed Mooga kamida oo hadda miyuu waxa kamid ah Qadaafi waxa kamid ah loo jiray Abshir waxa kamid ah min Maxamed Cilmi la yiraahdo ilka case هذا ديل دوس ملور ولا هذا كان مصطفى حشود مال شقده هذا يسوي وزير سواها بيرب رول موديل على لقد تارون تقف كافيان هذا كافيتيري كله هالكانوا بيزنس يسويس كوطا على شقده حشود مال ماشي كاغا سو بخدو نولشاد inaad ka gashaan loo baahan oo role model buu noqon karaa waa sababta doonayna dhalinyarada inaynu ku haa marka xilliga wax la asaasi u raadada hafayoko marka la sameeyay goobjoog runtii ka ahaa waxaan islahayn annagu waxaan sameeynay marka copy kale bafayoko mid oo la jiro boor baan ugu magacaaday markaas
may shaqeynino aad may shaqeyno active ma noqonin taasana noqono runtii aan sameynaynin dadkuna dee way iska wada noolaayeen marka waxaan xasuustaa inaan annaga iskaga nool oo iska martina oo aniga footiyo niman aanu saaxiibanahay baan hargeysiiskooda joog jirnay guriga axmed maxamed maxamuud silaayo allah u naxariisto madaxweynaha wuxuu deganaa halkan state house gurigiisana ku leeyahay isagoo finance minister marka inama adeer yahay baanu saaxiib ahayn allah u naxariisto qaar way dhinteen cabdillaahi ruudin loola jiro uu dhintay waxaan ka xasuusin lahaa axmed michael weli maanaan kulmin intaan soo laabtay marka guriska gurigii aabaha iyo kale wuxuu ka cunno marka suuqa iyo galo shaqada raadsano ayuha abiib deeriya nur gurigiisa abiib timaad oo cabdiraxmaan abiib baan saaxiibay guriga warska nool waan saaxiibsan cuntada ku cuni jirnay dadku may kala lahayn hebel halkan ka tag cabdiraxmaan ali gurigiisa iska tagi jirnay oo isaguna wuxuu ahaa madaxweyne ku-xigeenka عقدت كمان ناقمين هدان شقة وين بخش شقة وين كومي بهرجيس اللفتر كيدو هتلا كفيلا بملاهين بقى. أوكي. هلا هتلا ولون شيء جرجار وهذا برتما سوق كوي على جماعة وين. وحلا سيحدين تاسع بكستر كوبر برسيل يجيبوا شوى. مركا هدان شقة هلا دوان أركين ما بين نانهل بكوس ريسوس كابس كيلا مشارة بيشيل وحبيشيل. لكن واحد هذين اللي أنت كران كي هل نبى مركا نقطع بقول هرجيس شقة كيلا. حقيقي. أو روتا لا هدوك فرح سنة هاي. صح. وأنك لا قافته. فرومالنت هاي لا مالنتي أنا شقة ما ننهي دي سوما لا شقة وما ننقبل صح لكن إنك تابق شقة كهلا وسمري مع شاس وسووها أنت وحي كدم بي حقي كلا الرش ما كان وقت جامعة أنا بصور ما يستي صح دي بانوس ولا بتي مرك 4 سنة واحد صور ما يستي اللي حسنا هيد اللي حسنا باكستان أوكي وتصبرتي أنا أقول اليوم أمريكا دنتال سيرجن أنا أوكي أما دنتيس واحد هذا صح دنتيس دي بانوس ولا بتي ودنك وقدام بين waxaan ka shaqeeyaa isbitaalka Boorama anoo clinic baan horta furnay aniga la yiraahdo Dr. Abdi Umar Sheekh Ibrahim baa Boorama clinic baan ka furnay kan Boorama clinic la laftigiisa miyay magac kale u lahaa hadda kaasho Cabdi Rashiid markii dambe ayuu noqday laakiin markii hore kiraan ku jiri jirnay raaca wal bustaale gurigooda dawladda hoose ka soo horjeeda baan clinic ka furnay waana dhantiiskii ugu horeeyay malaha markaas la shabeeyay ayaanu ahayd waxaan markaa ku sameynaa muxuu ahaa inaan shaqo halka ka bilowno أنا عبد الرشيد استاذ كان بيلعب مكان شقين شري أو ديوتي أو رزق حاضر شري مارك وإحنا نقول داعي بحوها إن أنا أباها إنه dental nurse ويكل دويهن nurse عادية يو dental nurse ويكل دويهن كوس حوجا material كانوا كشقين نقف يقارن يو حسودين ما أباها نهاي إنه تدخل الله أبورنا أو إنه نعاوي بقى ما دام إنه خاطرنا هاي من الأسيستنت شو باهنين دب معنا شغلينا لقبته مركتي واحد نلقى شيء مركا إنه ما هو إنه باهنا هاي أدو مركا دب واحد الشيء فكرة أورانيسا مينو جامعة عمودات كفرنا قيبتي دنتيسكا سوى أحسن ومركا إنه فولنتري جامعة سنة مركا واحد نغنية سنة 2007 أوكي 2008 حقيقي مركا فكرة داس مركا نقول الله تيجي جامعة عمودات فولنتري ونقول شغلنا سيدا كلام أو أردنا بيحان لكشر سين كنا سينا لكن واحد عن idea داس نقول الله تيجي جامعة مفرقنا فكرة دوتي مذكر كلهم كي من دشيني مركان دشيني أنا قلت 2008 وانكر له فكرة بهانتي لكن هذا من نقار كده عرض ذاك صوب حدي ولا خاطر ذاك صوب حدي جامعة داس لكن هو فاني كرنا واحد مركب واحد جايب عبد الرشيد با والله عبد الرشيد با مركب دم سيو ودي لكن idea ده مركان نسلس إحنا واحد بدشيني با أنا قلت شانس كاسي ما نسيت شوقين وانكبح تني سوريا بتكتي سليمان تجي هالكاسان قربي حالكي وهنقلي أنت هرت أنا تجين هالكن دكتور كمان كانوا شغالين بيرجع لي واحد لسوق خش بيجري بير هولك الدولة ده سوق البالون ترى قفة هالكي يمكن لقى هذه بس لخاطر تحولين شرني وبابليك أورس كوي بديه مركب برايفت كان كدور بدنا أو عاد باللغير يقولين شرني قف نيل تكير وريجسن كان تكير وريجسن مركب عدو شو ونقول هذا ملنا وزير عبد هيبة ayaa wuxuu nagala kulmay aniga Cabdi Rashiid oo labadii badhantii soo joognay cusaalka Boorama markaa wuxuu ma wada joogi kartaan inagoo laba Hargeysa aan dhakhtar lahayn midkii waana soo raadaan marka man hospital baan clinic kala kulana ka wada shaqeyn jirnay maalmaha qaarkood Dr. Shiina meeshiisaas marka wax la ii keenay Allahu naxariistaan ilaado agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka ahaa Cabdi Hayba ii keenay warsban markii dambe saaxiib aan noqonay Anwar Maxamed Cige ayaa loo jiray Allahu naxariisto samsam bay walaalahayn gabadh leedahay si fiican baan حسوستا أنا أروح يقول لي أنا بيروح كدولة سوقلا وأنا أول ما قد أبغى نقول قلي ما يوم because واحد دوني يعني سيد برايفت كاجس كشرست مركا وده هذا الدير يقولوا إنه فعيد نقول نتاسك قالوا
sidii baan ku galay si aanan keligii u gelin markaa saaxiibka cabdirashiid baan lugta kusii jeesan oo adiguna galo meesha ilaag ilaag marka inkastoo markii dambe faa'iido noqotay aniga payrollkayga laftarkiisa markaan galay dabadeed uu go'ay haddana uu yaraaday in la soo galay marka hore bilaash baan ku sheegay macnaha waa la isla bariyay markii dambe magacaygu waxaan kaga tegay in la yiraahdo Dr. Farxaan hadda Mareykan buu joogaa isagana oo salaamaya oo Suudaan ka soo qalin jabiyay baa payrollkayga uga baxay sax markaan Suudaan tegay marka qurbiye xaalkii waa markii dambe galay intaanad qurbaha tagin waxaan doonayaa dhalinyarada inaan u sheego dhalinyaro bal waxaad suureysantaa nin dhalinyaro ah oo waxbarashadiisii form 4 ay kaga istaagtay magaalada uu ku nool yahay burburtay isla markaana doonaya inuu shaqo helo iyo sidaa uu Cabdisalaan inooga warramayo inuu ka bilaabay geerishkii ugu dhawaa intuu tago halka xirfad ka barto deedna wixii uu jeclaa markii la raadiyo auxiliary nurse uu noqdo ilaa khibradii auxiliary nurse ka uu ka helay uu business uu leeyahay ku sameeyay marka idinkana dhalinyaro waxaad ka doonaynaa maanta waa xaalad kale waxa laga yaabaa xaaladii mid ka fiican inaan ku jirno laakiin maanta waxa jirta dhalinyarada soo qalin jibisay badan shaqadii baa iyadna yar adigana waxa laga doonayaa sidaas lamada inaanad xishoon si walba oo aad shaqo ku abuuran karto ha noqoto inaad internship raadiso ha noqoto inaad si mutawaadicnimo aad dadka ugu shaqeyso si walba ha noqoto inaanad guriga fadhiin inaad isku daydo inaad wax tijaabiso ilaahay uu ku barakeyn doonaa ila kale oo uu ku furi doonaa marka dhalinyaro waxaad leedahay khibradaha waxaad ku leeyahay ka faa'iideysta khibradaha dadkii idin ka horeeyay ee nolosha tijaabi aan ku soo noqdo bal qurba iyo xaalkiisa iga horta halkaas israagalka badan ka bilaabmaya Axmedow nin weyn oo halkan ka shaqeysto khibrad la oo laakiin meeshii ka duwan oo waliba expectation ka qabtay uu yahay isla markaaba inaad shaqo galayso because qurba hore ma waxa ka taqaanid marka Europe iyo laga sheekay Mareykan iyo waliba aad wadeen miiska lagu sii saaray wixii ka shaqeyn lahayd halkaas hadaba nolosha challenge ka shaqada ugu badan ka bilaabaysa haye challenge ka labtiisa ka caqabada ka horimi waxa iga horiyay okay afanado qoon dadanaad garanaynin iyo adigii oo ay niyadaada ku jirtay inaad wax weyn helayso marka caqabadaha hor yimid waxa kamid ahaa inaan labadii sano ugu horeysay oo dhan aan dhismaar noqdo oo iswaay gibigeyguba oo luqadii cusub dhaqaniga cusub dadkii oo shaqadii oo iyada laftarkeeda u baahan inaad afkan barato marka waa inaad wixii miiska lagu soo saaray nooc doonaha noqdo si aad suuqa shaqada u gasho waa inaad marka raadin kartaa inaad wax samayso dad baa ka dambeeya naftaadiba doonaysa inaad dhisto oo xaas baad leedahay marka wixii ka soo horbaxa waa qabataa jeeda marka tii waxay u qaadatay inaan runtii 2 sano ma noqotaa miska joogtaa ma noqotaa miska joogtaa because waxa filiyay marka wax khasab noqotay inaan isla nolosha dhinacaaga ka gal luqadda iska baro loo soo waxay ugu kaliftay marka inaan runtii struggle adag dabadeed oo aan dhinaca dunta noqoto aan luqadda barto ka bacdi shaqooyinku halka doorasho ma leh sidii halkan ku sheegay kuli weyn oo halkaad ka bilaabi karto marka shaqada inaad ka soo bilowdo dentalkii wixii dentalkii internship baan sameeyay 2 sano oo aan ka sameeyay muxuu Sweden waxay wax marka wax la yiraahdo sheeg waxa la yiraahdaa inaan soo sameeyo refreshment courses marka macnaha aad doonayso inaad fiilkan iyo teknolojiyada jirta iyo waxaan oo dhan si aad ula jaan qaadi lahayd ayaa la doonay marka israagalka nolosha marka wax laga yaabaa wuxuu ii sheegay anigoo la isugu family isugu biil la iga sugayo in meeshan ka sameyn lahaana magaaladan deganahay ay ka fog tahay markaan salaad barafta u yarkaadi shaqo raadi marka shaqo nooc ay doontaa noqoto shaqaan bilaabay tiim aan ka shaqeyn jiray ugu dambeyn waxay noqotay markaa in noloshina lifekeena uu sii socdo income fiican oo kale iska yimaado mararka qaarkood aad dadka wax ka tari karto aad naftaada ku dhisi karto aad waxyaalo badan ku sameyn karto sidaan kuu sheegay ma lahayn aniga ku lahaa aabada iska shaqaale dawladeed baa la naxariistaa oo macallin buu ahaa mana ahayn dadka aadka u jecel inaan hanti waaweyn iyo waxa samaystaa si fiican gurigaan 50 years deganin baa laga yaabaa inaan maalintii dhaweyn dawladdu lahayd inuu ku dhintay la naxariisto family-guna halkaas ka degan ha jirto anigu inaan hanti samaystay marka dambe oo because of dawlad shaqeynay intaas oo dhan baa ha jirto walaalayaal in hanti samaystaan oo guriga ka dhistaan magaalada ha jirto laakiin aba qofka life-kiisu nooca ah marka aniga waxa laga doonayaa inaan hanti sameeyo ayaan naftayda doonayaa inaan family-gu meel ay leeyihiin dajiyo inaan waxyaalahaas oo dhan marka waxyaalo badan baa ayay hor yaalay oo ay tahay nolosha ka mid tahay of course oo doonaysa inaad wax ku hagaajiso inaad wax barataay waxa weeye waa inaad jahilnimada ka baxdo oo aad qof
wax fahamsan noqotood oo muxuu ahaa aqoon leh inaad laakiin shaqo heshay dee waa nooc arsaaqada ka mid ah oo haddaan ilaahayba kuu qorin waxaana baranaysa inaad ku shaqayso dadku inta badan waxay isku mix gareeyaan inay yidhahdaan okay waxna waan bartay waxaan anigu bartayna waxa ku rabaa shaqo 80% ma dhacdo inta badan si wanaagsan ilaahay shaqo kugu siin karaa ilaahay shaqo kugu siin karaa waxna laga yaabaa tan aad baratay tu ka duwan inay arsaaqadaada ku xidhantay si fiican tanina aqoon adoo aqoon bartay baa laga yaabaa niman badan ama dhakhaatiir ama engineers ama waxay doonaan ha noqdaan ama muxuu ahaa social life muxuu ahaa field of study dhinaca doonaan kaga jira macallimiin ha noqdaan waxay doonaan ha noqdaan inay fieldkoodii halkaas ka dhigaan business ka fiicanba ay helaan oo ay iska joojiyaan shaqada kale marka macnaheedu maaha wixii aan bartay baan wax ku helayo xafiis baan rabaa inaan fadhiisto horta maaha marka dhinaca kale ilaahay wax ka siin karaa oo tii aad baratay aqoonteedu way ku taalaa laakiin inaad shaqo heshayna waa arrin kaloo different inaad shaqada ka xishootayna u malayn maayo inay tahay tusaale yar baan ku siinayaa xilligan Pakistan joognay waxaan la joognay ma fara badan oo inta ka shaqeeya oo rag magac leh oo aad u waaweyn marka waxa ka shaqeyn jiray WHO waxa shaqeyn jiray UNHCR waxa shaqeyn jiray UNDP waxa shaqeyn jiray meelahaas marka anagu arday baan nahay xilliyada fasaxda iyaga iska booqanaa dad doonaysa iska shaxaad tagno waxaan u linkii hebel xoogaa deesha waa iska garanaysa arday xeerkii niman badan marka la joogo nin Dr. Said Salah Yusuf oo jiray WHO buu ahaa Dr. Abdul Mumin Hamari WHO buu isaguna Afghanistan bay haayeen oday loo jiray Khalif Vile WHO buu ahaa magan loo jiray waxaan xasuustaa Abdi Yasin nimankaas iyo officers si high class ugu nool magaalada deganaha anagu ay haay marka marka qaar kood bayna marti qaadi jireen marka maalin ma xasuustaa Abdul Mumin Hamari oo marti qaaday isagii xaaskiisa xalimadhiisu doon weligeeba darisahayn oo runtii aan halkan uga salaamaya Abdi marka wuxuu nagii gurigiisa cunto badan wuxuu anagoo fara badan buu qadan u sameeyay cuntada inoo sameysay xaliimo Abdi nama yaqaan marka koosnimo yar baan nahay wax laga yaabo aabayaasha garanay dadka qaarkood wiican anagu jaarahay marka si inferiority oo nooga saaro sax ayaa wuxuu yiri bal soo dhawaado fariista anigu oday weyn baan noqday inuu wada garan waaye laakiin hadda aabayaasha ii sheegtaan laga yaabo inaan gartaaba laga yaaba midna cuqdada ka qaadan anigu markii aan yaraa wax leeyo oran jiray buu markaan iraado in ayaa tahay ina ka shaqeyn jecel history-ga because isaga nooga shaqeeyay anaga ina ayaa tahay marka lagu dhaxo waxaan oran jiray buu wax leeyahay aniga ina Mumin Hamari markaas waxa loo jeeday ha ma odayga dhibta xoolaha dhiban jiray saas loo geli jiray buu that means wuxuu naga saaraya anaguna la xishoono aabahay wuxuu ka shaqeyn jiray ama macallin ha noqdo ama police ha noqdo ama ha noqdo wuxuu doono marka waxaan soo toori kareena hadalkiida maadaama isagoo ninka UN officer-kida sidoo kuma dhalanay waxa laga yaabaa bishaarkiisu inuu 20000 abaf yahay gurigu degan yahay wax intaas security ilaalisa that means anagu sawirka dadku ay qaadanayaan tahay inuu nolosha ku dhasho sidoo iska yahay laakiin way ka duwan tahay nolosha noocaas oo cuqdadii uu naga saaray markaas isagii baa isku kaya tilmaamay isagoo ninkan stage kan jooga buu haddana wuxuu isku kaya tilmaamay waxay dad qofka noloshaas ahaa sax uu yahay marka macna ku sameynaysa adna marka waxa la xishoona aabaha magaciisa sheegtay kuto markaas kolkan magaca sheegna wuxuu war odayga booliskii baa dhalay in hebel war odayga askarigii baa dhalay ninkan kale odayga macallinkii baa ku dhalay that means qofkii isagana waxa weey wuxuu ka saaraya cuqdadii qofna marka stage kastuu nolosha hadda yahay ma sidan kuma ha Abdisalaam bas kala noocan maalin dhaweyd ugu dhacday baa jirtay waan xasuusto halkan Ambassador Hotel baan noqday kulahayn Abdullahi Cukusan la joogay hada waa safiirkaasi okay wariyahay hadda safiirka exactly wuxuu nooga sheekeeyay marka aadan geeda qayad wasiirka waxbarashada inay markuu wada dhasheen ku soo koreen buu nooga sheekeeyay wasiirka beeraha aadan geeda qayad ayaa marka wuxuu nooga sheekeeyay noloshu aadan geeda qayad ku noolaan jiray yaraantiisii iyo tii cukusa ku noolaan jiray wuxuu isku malcaamad baan ahay isku iskuul waan ahay anagoo dacashir iyo iska sidana cagaha board kule baan iskuulka imi jirnay buu aadan geeda qayadna waxa sii sugu jirnay gaariga abiy ku wada quruxda badan leh inaan daawano inama yaro shirka ku jiro oo cadcad oo markaas anaga istaagi jirnay waan daawan jirnay buu aad baan daawan jirnay aadan geedii damiinis cukusi wuxuu ka sheekeynaa real life kiisi iyo aadan sidoo haadee macnaha laguma wada dhasho uu qofku isagiyo muxuu ahaa nolosha meel walba siba aqoon leh lacag agtaalo cukusi markaa wuxuu runta ka sheegayaa noloshii dhabtaaydu ku soo koray iyo noloshii dhabtaaydu aad ku soo koray waa comparing macnaha dadka waxun bay hadda iga tahay baraarujintaydu qofku noloshu doono ku soo kori kara waxaad wadada dadku inta badan inay hadda dafiraan
nolosha kusoo koray marka qurbaha meelaha la isku arko in hebel baan haa wadiga makhaayad lahaa hadda tiraado in qofku shir dhexdiibu igu yiri aabahaba makhaayad lahaa war noloshii de waa noloshii ma fahmaysaa ana way wax astaan baa lagu kan makhaayada laga soo bilaabay bade baash ma hagaagayso ha basic baan kula baa shaqada dawladeed buu hayo de muxuu ahaa macallin marka haddaan idhaahdo oo waa baahida madax buu ahaan jiray aan ka kala ahaan jiray ma meeshaad ku dhalatay waxaad soo ahayd waxay taariikhdaadu tii hore tagtay sawir fiican baad ka qaadanaysaa qofka ta marka qof marxalad ka soo baxay baad kaanaysaa that means marxaladahan baa la soo wada maraya taasina horta waxay iga tahay in dhalinyarada aynu dhiirigelino oo aan laga xishoon shaqada suudkii wanaagan waxa ka soo horeeyay halgan askari baad noqon kartaa officer stage baad ka gaari kartaa waxaad noqon kartaa muxuu ahaa officer dad shaqo tagi kartaa waxaad noqon kartaa qof beertiisa fashoo qota kalluumaysataad noqon kartaa macdan baad baaran kartaa that means micnaheedu maaha in isku wada dooq dadku ay noqdaan suud soo wada xidhan officer wada fariistaan de life nooca ma aho isma dhameystir hal suud hadii la wada jeclaado de qaali buu noqonayaa soo marka dadku in kala dooq noqdaan suudkiiba hadhow qofku khamiiska xidho qofku macwiista dooqiisu ahaado that means nolosha de ilaahay wuxuu ballaaray waa inuu meesha kaga aadan uu ka gali karo Sweden ka waran iyada intaanan wasiirkaanad noqon waxaad inoo wada adiga oo bilaabay Sweden waan ka guuray niyo markii dambe waxaan u guuray farda 5 sano ugu dambeysay waxaan ku noolaa Ingiriiska markii dambe waxa weeyii waxaan Ingiriiska ka badnaa ka baad soo laabtay markaan midana shaqada noocana baa iska timid horma marka siyaasad kugu dhalatay ma yaa lagu yeeray shaqada ma adiga soo doontay ma riyo maadaama ma yar ku dhalay ma riya jirtay sidee ku timarintaas laga yaabo markii hore waxa laga yaabaa inaan yar ka hadlay horta waxa raad kugu le mar walba shaqada aabaha iyo noocayta si fiican iyo guriga aad ku soo korayso guriga aad ku soo kortay raad bay kugu leeyahay fanaaniinta waxa lagu yiraahdaa goorma fanka bilowdayo qaar baa xidhan dhiigii ku jirtay marka aad wada siyaasaddu inay dhiigii iskaga jirtay si fiican oo markaad aragto guri laga manage garanayo ama shaqaalaha laga qoro ama waxa weeye siyaasadda dawladda laga hadlo ama laga hadlo nabadgeliyo ama laga hadlo marka shaqada aabahay baan haystay shaqo fiican inay tahay marka tii baan aniguna runtii ku soo koran ku soo barbaaray oo aan oran jiray at least waan ku sheegay qof caafimaad jecel buu ahaa qof waxbarasho jecel buu ahaa qof inuu nabadda ka shaqeeyo jecel buu ahaa ana waxaad moodaa wax badan oo isaga raadkiisii inuu uga hadhay marka ma curad badado anoo may aniga laba iga weyn waan ku lahaa laba iga waaweyn bomba ku dhashay oo ku dhalan gaaray laakiin qofka saddexaad baan marka always waxa wiilasha kaliya ah no anigu wiilasha kaliya baan ahaa wiil xablood baan la dhashay ma sha Allah boqor yaro xaafadda isku joogaan marka hawl abdalla dhalato si fiican adiguna sadii sheegaysay aniga niyo ma ilaahay five shores anigu shan wiil baan dhalay laakiin ilaahay gabadha ma siin ma sha Allah marka aabbo lix gabdhood iyo anigu dhalay marka waa salaamay walaalahay waa halkan baan ku salaamayna waan jecelahay gabdhaha aad baan u jecelahay waa runtii waa laf dhabarta family-ga Soomaaliya waxay ku badbaaday si dabada gabdhaha haayeen marka dadka ma ka qaybaha marka exactly saasay baashiga kugu jirta ayaa fursadan marka siyaasadda dhiigayga iskaga jirta oo runtii waxyaalo badan aan ka shaqeeyo iska social life-kii way jiraan dinac qof muuqdo oo meelaha laga hadalhayo ma ahayn laakiin mainku wuxuu ahaa inaan had iyo jeer iska caawimaad jecelahay dadka intii muxuu ahaa waxaan la qaban karaa la qabto siyaasiyan aan fikir positive ka aan hadli karo oran karo daniyo waxaas waxa kuma fiicnaa laga dayo runtan aan ka sheegi karo adoo waa reflection waa sida aabbahay iska ahaa inaad dadkii xaqiiqdii wixii aad dareemaysaa ka sheegto tanada niyo iska job opportunity baad shaqays ka timid doon baahayd oo macnaha qofku waxaad noqon doonto arsaaqada iyo guurka iyo caruurta iyo wadka iyo ilaahay waa naga qariyay marka meel ku dambeyn doonto ma garanaysid hadda waxa mahad celiyo cidii xulatayna team ka mid noqdo madaxweynaha dalka ولكم هذا عبد الرحمن محمد عبد الله عرو يبدأ إحنا كحينك ونقوم هذا علينا مع محمد علي تيم كبار محموها محمد علي وعبدي إن التيم كان كم من نقطة الشقينية يجا وأنا دقف موادنا هاي وإحنا وان دوران كرا أنا والله دوران كرا شقان قبان كرا قف كلا شقية قبان كرا ووحون إسكاء أي شيء يسموه هذا نمط marka wararka faraxsan ka mid noqday dad waxaynu ku guda jirnaa wareysigeennii khibrad wadaag barnaamijka khibrad wadaag wadaagista khibradaha iyo waayo-aragnimada waxaana inoo marti ah Dr. Wasiir Cabdisalaan Xuseen Cawaale Cabdisalaan dadku waa kala xiisay iyo dooq iyo hub duwan yihiin adu maxaad xiisaysaa maxaad jeceshahay waad maastaa Axmed anigu hubigayga ka hortaan aad ku jecelahay
waa football kubadda cagta waan jeclahay okay waxay soo raacay marka waa dabaasha swimmingkana aad baan u jeclahay si fiican xilliyadan ismadadaalin suugaantan jeclahay si wanaagsan marka suugaanta miyaad samaysaa mise keliya maya anu just dhegeysta fiican baan masha Allah aynu nimaadno hadda waxaa tahay wasiirka wasaaradda tiknoolajiyada boosaha iyo isgaadhsiinta ee jamhuuriyadda Somaliland wasaaraddaasi iyo adiga maxaa idin qorshe ah xageed u socotaan dalka maxaad ku soo kordhinaysaan dhalinyaro badan oo shaqo iyo baa jira wasaaradana tiknoolajiyada ayaa ku jirta iyo hal abuurkii soo dhow maasan axmed horta wasaaraddan inta badan adduunyada waxaa taqaanaa lama yidhahdo boosaha isgaarsiinta iyo wax laakiin digital economy baa laga yaqaana okay marka digital economy macnaheedu waxa weeye waa wixii digitalka ka soo baxay waa waxyaalo dhaqaalaha ugu badan leh inta badan adduunyada Facebook ka qaadan cashuurta ama laga qaado TikTok ama laga qaado X ama wixii tiirarka loo oran jiray waxyaalaha ugu badan ee dawladdu lacagta ka sameeyaan ee wasaaradda maaliyadda hadday doonto ka lacagta badan leh bay ku jirtaa waa haddii sideeda macnaha loo establish gareeyo u shaqeyso koosoo garan wada arkaysa beriga dhawada TikTok laga hadlay share naga siiyay Mareykanku lahayn inta ay leego lacag sida loo kala iibsanay teknoolajiyadda runtii xawliga ku socota for the last 20 years wax laga yaabaa inay afar shan stages bedeshay كم 20 years كان إنتهين لكن يحس كبدلان ما لقيه because مركز دكتور لاتك السنة قد بس حاول يجيه ولا قاضي أنا واحد قرني ودنا كنا لقي استعمال الإيميل اللي لقى لكن لو بدي كنا كتجي وحل شو كان يشتري ترصد على أي بيلك قف كل جين شلون رجل وقدر الوصول ده آخر شو مركز دمبي وقدر كان يسار كي كسب بلامته ياه هو بلامي وحصل بلامي هذا حلون شلون خد ميلك مثل ما سنشر كلون شلون ولا قصو قد بروح لون شلون اسمها بيقول MRC وحنا قولي شلون بس كذي أو social media كوشي شلون مركز دمبي شو قد بتهدرا يوتيوب يبتي متباشين الصناعة وعشان دي واحد اللي سوي لعبه وإلا غير هذا الله شيء ستايل على جبل عشان دي اللي رجسني وقرنين وديسك ديجيتال ما قرني دي هاي عشان دي وريج ستة قلنا كله قصو على شيء أنا VCR كنا قرنين تي فيديو ريكورد كله قصو من شيء لداون شيء أنا قرنين وحيونا بيوتيوب له وريج شيء بيقول ديجيتال اللي قاعدين هذا فيسبوك بكده بيركب بس تيجي سمعت هالكم مريض قرن 2009 2010 صباح هذا لو ودي قارك يا فيسبوك بيجي واتساب واحد بارتو لوري شيء بيرجع هنا تدخل السوشيال ميديا هان كويس استعمال شيء هذا الاستيجي خلينا نقرني بالله يا بدو ساينس ومعلم بوح عصب بوكيني يا ساينس وين تبغى 96% أما 94 بي إلهي ما قرني لكن هي 6 كاسة أيدك وين تبغى إنه قبتي إنه كفر جريدة مايكروفون ده إنه هريالا كمبيوتر هذا baabuurada diyaaradaha hawada maraya hubka la sameeyo caafimaadka iyo teknoolajiyada la gaarayo waxa soo dhan science-ka daawooyinka inta aan ka naqaanaa way kooban tahay laakiin haddii adduunyada in ka badan intaan jina sii jirto wax laga yaabo in kolba wax ku soo kordhi doonaan soo kordhi doonaan marka wasaaradda hadda baahida bini'aadankan dhamaad lahayd markastoo baahi bini'aadan jirtana hal abuurkeedu jira markastoo baahida badan timaada hal abuurkuna way imanaya adduunyada inta research bay ku jirtaa wuxuu badala which ana profession-kayga aniga ahayn wasaaraddu laakiin haddana waa army haddana waa maamul marka faham guud markaad shayga ka haystana digitalka wax laga yaabaa inay wax kaaga kordhaan khibrad aniguna wasaaradda waxbaan ka bartaa oo maalinba wax cusub ay ku soo kordhaya inaan wax ku kordhiyaan haddana waa laga rabaa waa because hadda wax jira waxaan ka shaqeynaa wax la yidhahdo cyber security oo wasaaradda ah e-governance baa jira isaguna ama e-governmentka wax la yidhahdo ayaanu establish garayna haddii ilaahay ka dhigo hadda waxaa jira mashruuc weyn oo ka shaqeyno World Bank fund gareeyay oo fiber optic okay Somaliland National Fiber Optic miya exactly oo kaasi wasaaraddu hadda gacanta ku hayso oo la 8 milyan ama iska dheh marka fiber optic connectivity wax la yiraahdo sax beriga hore waxay la sameeyay 1200 kilometer baa la sameeyay 1200 kilometer fiber optic hadda waxa markaa ugu siyaadiyeen 900 kilometer 900 kilometer marka cross border buu galayaa oo xad buu ka soo gudbi doonaa waa wajaale buu hodle بربره هرجيسة إنا أفمدوبي لا عرقابه مركز كانوا فايبر تجارسيسنين جارسيننا مركز شغالين توقف بدل مشروع حقل دونا كونكتيفيتي واحد يروح لهذا كونسلتنت فيمس وضد كاي كل شغيان ومثلا كل أسسمنت ريسك أسسمنت وحياة السماوية مركز وحياة سنة مشغول كنا هي وزارة قبلتها كشقيسة وحياة فيوتشر كنا أهنا وحكم بدأ إني وزارة بين عيب بدل وأكيد مديهين مثلا كلا هذي نص ولا قشور إن عشورات كي وحياة نوعس عن قاب هو إلكترونيكا أيوة كي من دونان عنو سمينو حي governance اللي هذا أو دولة صح حفيز كسبوحي كهذا حرمات كير دونتو هو ويب سايت عادي أو دومين كيسة وزارة فرانكو هايسو إيميل هذا ودل كوردن يدا حد ما مش أنت وجود بدن وزارة ده أو فاسيلتي ده جلسة وزارة
waxaa laga yaabaa inay maalin walba transactionka money transferka electroniga ay maalin walba dhex maray 30 milyan 40 milyan waddanka gudihiisa marka waxaan rajaynaynaa sida vaadkoo kale wax loogu daro inaan insha allah kulley wadahadallada noocaas oo kalena way jiraan in loogu daro dowladda wax cashuurteeda وطبعاً كان عندي 0.5 ما 0.5 وكلا الله صار إن كان فرق بدن بقى وسيح هولندا مركز شغالة وزارة فهمتي ووزارة ديفلوب جروبيس أو روس عطا واحد شيء هنا يعني حاجة يعني هذا محد فرصة ضوء يسعد اللي هذا عادي سمارت على الشراء صح وواحد شغلها كبحي سفيان واحد شيء ماله هذا innovation center innovation center كاسي واحد شيء عرضي كردقتها أو معناها لسيو like vocational training school أو كلام معناها digital youth center meel la yiraahdo ayaa jirta oo dhalinyarada wax lagu baro oo ay kamid yihiin in qofku si degdeg ah suuqa shaqada u gali karayo ama fingerprint ka la baro CCTV soo lagu shaqeeyo la baro muxuu ahaa inay filmmakers waxay doonaan ha noqdaan aduu digitalka in wax ka bartaan taasina waa u bilaash dhalinyarada oo si fiican runtii aan uga caawinaa centerka marka wasaaradiina fangaraysa anaga wasaaradeedu hoos yimaada anagana ku shaqeynaa taas waa jirta masha Allah qofkii waxaan rajaynaynaa inay waddanka ku soo gudbinta hadii la hayra waa khayri wanaag baan ku rajaynaynaa Allah kugu asturo xilka iyo wasaaradda culus maalintii dhawada ciid waxa jiray hadal aad magaalada Boorama ka tiri qaybta waliba Sheekh Ismaan dadkii aad kula ciidaysay hadalka maxaad uga jeedaa dani hadalkaasi anigu waxaan uga jeeday inuu ahaado Soomaalida waxa tiraahdo waan arkay feedback ka soo noqdo dadka qaarkood ay ka filcelinayaan laakiin laba qodob baan laba fariimood baan ku bixiyo meesha ayaan hadalkayga speechkayga wadnaa hadaan laga tagin fariin saddexaad baa la socotay fariintaasi waxay ahayd xagga nabadgelyada mid ku saabsan oo ah dhulkan inaga iska leh anu qabiil kama hadal qolada kama hadal manaha idkiiskayga anigu inaan ka sheekeeyo meelaha laakiin oo qabiil ka hadlo laakiin miinkii wuxuu ahaa oo dhulkan inaga iska leh hadii waxay magaalada inaga leh mar haddaynu inagu magaaladan leenahay ay tahayna tii ugu weyneed oo qof waliba invest garaystay ka ugu yar baa guri kula dadka qof kasta waalidkiisa baa jooga haddii waalidkiisa jooga ehelkii baa jooga baa mushar baynu kula nahay waxaanu kula nahay ciyaal bay noo jooga waalidiin bay noo joogta hanti bay noo taala markasta oo waa suuragal khasab wax tabasho way jirtaa tabashaduna ma aha tu laga hadayo of course qof waliba wadanka waynu wada leenahay dadka ku nool dhamaantood 35 sanadood baynu ka mid ahay khayraad wixii jira inaan loo qaybsano waan ku qasbanay sidii loo doonayna dhamaanba waxa laga rabaa inta dawladda ku matasha muxuu ahaa gobolka iyo muxuu ahaa dawladda laftarkeedu inay dhageysato codka dadka waana u diyaar runtii intaasoo jeerna waa la sheegay inay dhageysato oo loo soo jeedo laakiin qaabka wax looga hadlay loo doonayo farsamo ahaan waa la oran karaa sidani ku wanaagsantahay sidani ku wanaagsantahay laakiin qaybta duminta hal laga daayo baan igahay dad badan feedback ka soo celinay waan arkay in magaalo kaliya uu leenahay maxaa loo iloobo qulsheed maxaa loo iloobo dila maxaa loo iloobo boon maxaa loo iloobo lafaciisa maxaa loo iloobo baki maxaa marka tusaale bixinayso laba saddex maxaa loo iloobo xeego maxaa loo iloobo xeego maxaa loo iloobo macnada eg xeebtii oo sayla maxaa loo iloobo lugaya xariirad maxaa loo iloobo qof jaahilka waxa soo dhan lagu meehiyo qof minka dadka baraya dadka meey of course dadkaanu wada deganahay ma kala deganin Europe iyo American iyo Ethiopia saacad gudaheed ba Soomaaliland la iskaga talaaba marka cid badan oo isbarayno anaga halkan la odhanaynaa horta ma jirto de koobka shaaha aad u barbarka yimid baa ma ka cabi oo waad sii dhaafi oo baad doonto inta ka hooseyso dhan baa tagi dadku waa dad Google ku wada fadhiya marka waxaad moodaa egos maxaad waxa u oran weedo kala un baan laakiin dadku horta dadkii lama wada qancin karo laakiin miyaad isleedahay hadalka ay dad inta ka kooban buu ku haboonaaye bulshada inta lagin sida loola hadlo absolutely no waxyaalo ka badan oo ka xun oo muxuu ahaa aan macno badan soo kordhin social media laga ilaaba marka dirsino reason aan u yiraahdo taasoo kale kuma haboonin halka because dadku de waxaan hoos looga hadlayo baa kor loogu hadlaa marka anigu ujeedadu ma ahayn dalka hal ilaaliyo baa magaalada ay naga leh dalka la sheegayo from lafac jigjiga ilaa iyo zeyla dadku way wada degan yihiin dhulkeeniina weeyaan laakiin sida qurbaha Soomaaliyeed degan ma la oran karaa laakiin waa lagu kala badan yahay dadku waa la oran karaa dadku magaaladu wada degan yihiin laakiin waa lagu kala badan yahay of course hadduu hal qof ka joogo family kamid ah ummadda de magaaladu degan lama oran karo laakiin waa laga badan yahay everywhere adduunyada waa noocaas ama jigjiga joog ama barra joog ama dhar wanaagsan joog ama lafaciisa joog ama boorma joog ama baka joog ama lughaya ama dila
وأنا ما خدوان تيرنا بقصة ده تام واحد القادم ولا ورا يسمع أنا سؤال كلك ويديو تاسيس برتي تاسيس هاي شديد عليك وحاجة هيدا ورمجالدنا هتيجي ugu badnayd dadkii ugu badnaana oo joogo yeeyna sina waxdu moodaa boormeen inuu aad ugu soo ururnay waxaan weenahay dadka ay magaalooyinka wala yani yeeyna ku dumin because duminta wala dumin karaa wax oo hadda imanka guriyaha adduunka dimbilish wax lagu sameeyaa bam yar lagu xiraa u dagaaw laakiin dhismihiisu dib u duqata marka waxaan haysano waxaan ku beeyno adeegyada aan sheegay ee magaalooyinka malaanina waxa kamid ah magaaladan markaynu wada deganahay magaalooyinkii kalena waxay u baahan yihiin in la magaaleeyo oo dadka ku noolaadaan cidda magaaleynaysa waa shicibka ee hantidooda gelinaysa wax ka dhisaysa laakiin wixii facility ka dhiman dawladdu inay ka qabato wax waa sax taasi shaki kuma in laga shaqeeyo sababta doonayna inaan ku weydiin boor waxaad moodaa bariyahan dambe in aad iyadiina u wareertay iyadiina loogu wareeray inteena ama intiina ku matashaa siyaasadda weli miyaad intooda xukuumadda wadani ba aynu nidhaahno miyaad wada fadhiisateen oo tirahdeen waniyo maxaynu magaaladani bal inta aan joogno bise waxa doonaysaa sidii qoladii hore intood la meermeeraysataan marka dambana dhibtoo taagan inaad qolada kale uga baxdaan iyo horta waxaan oran karaa anoon cidnaba ku dhaliilaynin waxyaalaha dhacay because of waxyaalo uu xilligu wata iska jira laakiin aanad adigu markaa control aad ku control shabalahayn waayo ilaahay meelba ku wada inay gaadhaan marka adigu kama joojin kartid dadkii nagu horreeyay xukuumadda la shaqeynaya xukuumadii hore meel bay hagaarsiiyeen tan imika anagu taagana waxaan oran karaa kuwa ugu kulanka badan leh ee sarka ka shaqeeya danta ee siyaasada wala wax ka qabanaa intii awdal ka soo wada jeeda kelmadda calendar maalinta dhaweed waxay ahayd taa magaalada marka laga tago waxaan ka soo sheekadii markii dhaweed ka sheekeynaya ahayd shaqada meel baa laga bilaabaa dhalinyarada anigu waxaan ku dhiirigelinaya opportunities baa imanaya khasab opportunities ka wixii miiska la soo saaray dawladdu idin soo saarto war hadeynina qaata bay oo ka bilaabo halka ugu hooseysa aba noqoto dhamaan dhalinyaradu waa wada graduate hadii galaan muxuu ahaa iskoolada tababarka ama police noqoto ama military noqoto isagoo officer laba xidigood baa la siinaya oo si wada kariya noloshiisa maalin oo aad arkay saraakiil badan oo dalacay si wanaagsan wax laga yaabaa marka ma fursad soo wadaan fursad of course way jireen fursado si fiican waxa jiri doona kama hordhacay laakiin way jiri doonaa taan kala hadina waxaad war fursadaha yimaada official ma hine isku daya inaad ka qayb gashaan taasina taas ahayd tan kale inta badan waxaad moodaa siyaasaddu qaybna waa gudaha qaybna waa dibadda meesha doontaa noqoto fariin kale laga yaabo dadku inay ku wareeraan baa laga yaabaa inaan aado arrintu malaha noocaas aniga ila eg tahay waa aniga kuma wareerayaan laakiin de qofkii fahankiisu soo jeedayo islaamba gabadhba waxaa lagu yidhi aabaheed baa waxa ku yidhi aaba arigii maanta meel doog leh oo fiican ma geysin ama ma soo mayraaday gabadhana baryahaaba niyadeeda guur baa iskaga wareegayo iska gabadh guur doona bay daadii gaadhay malaha waxay tiraa aabbaha ninbuu kuu soo wada hadalka fahankiisii waxay niyadeeda ku haystaa ka weynaa waxay tihi aabba haddaad ii dhisayso iyo haddaanad ii dhisaynba aduun bay kaa go'daa taladu marka aabbuhu wuxuu weydiiyey gabadhii way aqbaltay marka waxaa laga yaabaa markaan kelmadaha qaarkood oo kale sheegay dadkii niyaddoodu wax kalea ku guwaxayay waxaan uga jeedaa laakiin aniga kelmadahaygu meeshay daarnaayeen straight forward waata laakiin de hadalka qofba meeshuu doono hadal waa margi oo haddaad doonto kolhaa heebay ku noqotaa guri ayaa odhahba ahayd nin kalena wuxuu yidhi dhankaan ka hadlay waa kaa qamaan dhaafay hadalkii anigu ujeedadeedu ma ahayn ama dadku waa ku kala tagaan ama wax ku xumee ama wax ka ujeedadu aniga conceptkaygu wuxuu ahaa warqaabkaynu noolaalana nooca han noqdo buu ahaa taasi waa main pointkan oo uga dan lahaa biyo ceelna waa la yidhi soomaalida tira waa nimba dhinaca uu ula fulo marka qof dhanku ka istaaga suugaanta waa noocaas oo kale marar badan wayba fiican tahay in hadalkaaga qaabab badan oo suugaanta laftigeeda suugaantaba waxay dadka loo kala qofka exactly gabadhu nin jacayl buu la kacaa nin wuxuu la kacaa waa anti buu yiraahdaa qofade si uu la kacaa xabada waan fahmay to kale marka meesha ku jirto marka qurbaha la joogo marka gudaha la joogo waa different horta meel walba cid buu ilaahay dhigay meesha doontaa noqoto dad baa jooga marka xaq u leh marka meesha waxa yaala inay resourcekiisa ka qayb qaataan gobolka awdal iyo selal cid buu ilaahay dhigay dadka dhigay wixii xumaan yimaadayna ama dib timaadayna iyaga ku dhacaan wixii wanaag yimaadayna iyo dheeftana helaan maxaa u diidaya waan helaan of course waa sidii qofka Djibouti ku dhashay ee joogay dib wixii halka ka timaadaya dheef wixii halka ka yimaada isaguna iska
because tolka meel buu ugu jiraa qabiil Soomaalida qabiil ayay iska tahay Ilaahay u abuuray kadib bulshada Djibouti u degay Ethiopia u degay wuxuu degay Soomaaliland u degay laakiin de waa qolo walba meesha ay joogto anu Djibouti hadda shaqo ka raadiyo ma afkayga qanaano si fiican ma Faransiis ma qaaday haye waxaan u deynayaa oo laga dambeynaya cidda joogta ee ku dhalatay ee sharcigeega haysatay ee ku matasha ama MP ha noqdo xubin baarlamaan ha noqdo ama ha noqdo wasiir ama ha noqdo saamiga halka yaala cidda xaq u leh inuu helaana waa isaga hadii saan qaybsi laga hadlayo haye inanka Ethiopia joogo kala waa saas oo anigu de ma aqaan afka Ethiopia laga shaqeeyo xaq waxa uu ku ixtiraamaya si positive aan uga hadlayo tan xaq waxa uu ku ixtiraamaya waa isaga halka resource-ka wixii ka soo baxa inuu isagu ku faa'iido markaan anigu tagana de aan ku farxoona walaalka waa meesha ku joogo muxuu martiyo u tago la joogo haddii xilliyada qaar ku doorasho timaadaan cross border election baa la sameeyaa si fiican muxuu ahaa way noo yimaadeen dadka Ethiopia jooga xadka ka soo gudbaan inaguna oo gudubnaa marka xilliyada caawimada la doonayo waa la isku codeeyaa Ethiopia loo soo codeeyaa Somaliland loo codeeyaa qabiil kastoo Somaliland degan oo noocaas oo kale Ethiopia uu joogaa Somaliland uu joogaa laakiin resource halka ka yimaada cid baa laga dambeeyaa iska leh oo lagu ixtiraamo taasi waa kow waxaan jecelahay marka hadduu saami jiray marka Ethiopia deegaankaas inuu saamigii tolka ku lahaa soo qaado oo ama MP ha noqdo ama wasiir ha noqdo ka Djibouti jooga intuu tolka lahaa halka uga soo qaado ka Somaliland joogana saamiga halka yaala isaga ka hadli kara in looga dambeeyo isaga resource wuxuu yimaada oo because waxaan arkaa inta badan inanka Djibouti ka yimid markuu Djibouti ama gabadhu systemka halka jiray inta uu u gulyahay baa la qabtaa lama caayo laguma qayliyo lama aflagaadeeyo waa polite dadku way iska fadhiyaan Ethiopia ninka jooga qofka joogana waa saasoo kale lama caayo lama aflagaadeeyo systemka halka jiro baa hulana laakiin Soomaaliland waxaad moodaa in xorriyadda qowlku ku badan yahay oo qofku soo doono hadli karay xorriyadda qowlkiiga markaa dadsamin inay sharing tahay oo lagu share gareynayo de qofka Djibouti ka yimid iyo Ethiopia ka yimid iyo contacts-ka waddanka yaala isagoo fahamsanayn in uu markaa ka talin karo jihada loo dhaqaajinayo siyaasadda Somaliland taalaay waxaan oran karayaa contacts-kaasi arrintaasi de ixtiraamkeeda waxa ku leh inta gobolka Awdal iyo Salal iyo Somaliland degan in looga dambeeyo lagu ixtiraamo marka ma waxaad u jeedaa hadalkaaga laga fahmaya dadkii reer Somaliland Awdal iyo haban noqdaan dad kale walaalahooda Djibouti ama Ethiopia ka yimid kaga saameyn batay wax raadintii Somaliland ku maqan saasad jeedaa maya kaga ma saameyn badnaa laakiin marka political influence kale marka laga hadlayo anigu qurbahan ka yimid meelaha qaar kood marka dadka isugu timaadaan waxa laga yaabaa inuu aad kaaga cod dheeraado oo ka hadal bato ama uu ka hadlo daraha halka yaala nin aniga tolkayo walaalkaya oo ma Djibouti ka yimid ama Ethiopia ka yimid oo anigii laftarkayga halka ka yimid ama ku ila mid kale ka yimidba oo dooriyo in macnaha isagu ku influence gareeyo waxa iyagu dooriyo inay sameeyaan de hawsha halkan taala inay ka duwan tahay sidoo fikrayo way kuma korin kuma dhalanin wax kuma baranin that means waxay noqonaysaa inuu qofkii markaas isaga laftarkiisii the mix marka iska timir xabaal taalade oo kale noqonaysa qof walba meesha ka soo galayo dhan si fiican marka anigu respect u haya marka doodaadu waa dadka halkan ku dhashay wax ku bartay ha loo daayo priority-ga ka waran odayga laba xaas le midna Djibouti buu degantahay ama Ethiopia midna Boorama uu degantahay very good chance ruurtiisi inta Djibouti ku dhalatay Djibouti ku dhalatay Djibouti bay ka raadsanayaan waxooga waa si fiican ugu noolaanaya si fiican xaaska kale halkan joogan maxaa u diiday halkan uu access kaleeyo si wanaagsan marka waxaad leedahay qolada xaggaasi ha tixgeliyaan kuwa halkan sii joogayo saan anigu uu tixgeliyo ama inta ila mid tixgelinayaan oo lagu respect gareeno meel bay noo joogaan tolka meel bay u qaabilsan yihiin saamiga halka iyo hawshiisa ha ka soo baxaan opportunity-ga yaala ha ka qayb galaan laakiin halkan yaan overlap laga dhigin bal hadda cid joogta inay in looga dambeeyo taasaan marka uma jeedid cid gaar ah waa cid walba oo labada dhanba degan dadka hal degan halo waxaan saa u leenahay dadka qaar ba wax laga yaabaa inay ku badan yihiin xagga deedna oran karaan anaga naloo jeeda horta waan ku positive way baan uga hadlayaa meel walba lagu kala badan karaa laakiin wala wada deegi karaa si wanaagsan oo macnaha qofkaasi meesha uu degan yahay lagu badan oran karaa adduunyada dhan waa saas macnaha inay dad badan oo meesha ku dhowl jiraan meel kasta inay u badato wax iska suuragal taasi waa caadi laakiin aniga waa laga yaabaa inuu feedback kale ka soo noqdo si wanaagsan laakiin sida straight forward uga hadlaya anigu waxay tahay qof waliba meeshuu joogo siyaasadda iyo nolosha iyo shaqada ka matalayo tolka ugu jiro lagu tixgeliyo ha ka soo dhalaalo si wanaagsan muhiimadda in wata dadka kalena ha ku tixgeliyaan absolutely aad baad u mahadsantahay aad ba waa hadal cad oo wanaagsan ugu dambeyntii waxaynu soo gaadhnay gunaanadkii barnaamijkeena khibrad wadaag kulankiisa 25aad
oo marti noogu ahaa wasiir sacaadatu wasiir Dr. Cabdisalaan Cabdisalaan ugu dambeyn hal tala dhalinyarada Somaliland oo dhan iyo dhalinyaradeenii reer Awdal iyo Boorama wasi talada ugu dambeysay Somaliland oo dhan si horta dhalinyarada dalka ku nool guud ahaan 70% dadku waa dhalinyaro waxay u baahan yihiin wax kasta qof dhalinyaro adduunyada ku nool u baahan yahay ama ha joogaan Somaliland ama ha joogaan waxa daafaha dunida meesha doonaan ka joogaan kuwa gobolka Awdal waa kuwa ugu sii tirada badan leh opportunity-ga ugu badan ana markaan ka hadlayo in saalahay jaamacado fara badan ka fara production baa jira mar walba dadkii aad u soo baxay opportunity loo abuuray waa khasab waana arrimaha ugu muhiimsan laakiin iyaga wax kula dardaarmaya opportunity-ga saad suuqa shaqada u soo gashaan ha kala dooranina shaqada tii aad markaa aragtaanba ku fara adeegoo gala waxay idin dhaantaa idinkoo gurigu iska joogo iska soo kaco subaxdii taasaa ka khayr badan qofka dhididkiisa cunaya xoogsanaya qofka muxuu ahaa meel uu joogaana isku mid maaho maana ilaahay baa inoo sheegay marka waxaanu u baahannahay inaan ka faa'iidaysano opportunity-ga jira dalka ama ha noqoto dahab la qoto ama ha noqoto beero la qoto ama ha noqoto kalluumaysi ama ha noqoto shaqaale dawladeed meel loo shaqo tago ama ha noqoto technology ha noqoto ganacsi ha noqoto idinku ka dawlad ahaan miyeeda ka go'an tahay inaad fursadaha dadka si cadaalad ah tusaale imtixaano mise wax laga yaabaa sidii hore in هذا كهرباء opportunity نوعاسي وجهان. أوكي. ومعناها صوص هذا. أو عدالة ميتين عندهم يروح كترتمي. أو وشقيني أو نلقاتنا بقى مدحونه. أوكي. نوع عيو كان دونا نقدم وين هوري من دون مصلى. لكن دلال وين بنقول الناس سي أي opportunity اللي يردوا هلان. وسميه. فرصة الله أبو رأي وسميه إن شاء الله. فرصة وسميه تاسع لدنا هذه لا فرصة الله أبو رأي. لأن أنت حلك تشوف تعقيب سطع ما أنت مقعدي. نقول ترانسبيرنت ان شاء الله ايا دوننا in loo qaybsado insha Allah way Somaliland had ugu dambeyntii oranaysa Somaliland iyo horta waxa weey waa dal madax banaan aqoonsi helay cadow badan leh marka runta laga hadlo Somaliland cid kasta ku cadoway xaalad sida ka adag bay soo martay oo ku soo sheekeynaa hadda oo ku lahaa dib shirkadu heshiisiinta iyo arrimaha soo maray halkii laga keenay meel fog bay ahayd laakiin warwar badan وما قبل وما بقى يهدا markaan ka magaaladii Boorama sida u dhisantay iyo quruxdeeda waliba doorka ugu badan dadku leeyihiin hargeysa oo kugu lahaa gargaar iyo maawal baabo gabigeeda hotel aha maanta halkay mareysaan sareen aynu joogno halkayso hotelka marka magaalooyinkii kala Somaliland oo dhan sidoo amarihiin aad aragto nabadgelyadii aad aragto taraafna yeeshay horta Somaliland in loo baqimaayo waxaana aaminsanaa duruufo ka badan kuwa oo ka adag bay soo martay guul baan u rajaynaa dhammaan Somaliland أدبد محسنتهاي سعادة وسير جزاك الله خير أدبد محسنتهاي تبروزاك تيم أدبد دي سلام عليكم ورحمة الله وبركاته